شركان شر عصب معها وشركي سند لها أها ومعمول لها دولة كونفور قلبي يسكو أركاين وأنا شركي شنات وأنا سجوني معنا بيدبو وجددي سنة أي أهيد إن كهذا وحي نوقب صومي يوحى نوقب صومين يوحى عن ربنا هذا إني أنقبنا سؤال شمرك وحيت هاي وحي نوقب صومي إلهي بمهله ونوسور تقليي دذال كان نجي إن لجار أو أي وح نوقب صومان وحي نوقر شيء صنع وعن نوقب صومين وحي أي أقب صومي وايين سيد اللي قبل لها وحي كلا هدا أي تهي قرشه إن لقبته أنت أسكدب إن وربحين تاس لكلاقاته ليسندي رجليو أما ويرتا وذا شقين تنا أي جوكتا أحد وها أنت أسيدر وكلن كان مهمدي سؤوليه ما دام هالستيت أي كودة ترسيهن مع مولدان إن أدين كنفتركينا سام بهري الشيء إسورستان محايا لي دقموينك دروفو كلا دوان يكونوا ليهن كوا بدبا كتالو كوا ويبا كيالو كوا لبضا بمقبان كوا بيري قبان كوا حول لي قبان كوا أبارتا كبدن كوا آرنكا كبدن كوا علادا كبدن كوا نبدا كبدن نين والبابا دروف قوني يو قبا marka si loo kala faa'iideysto maadaama hal state laga wada shaqeynayo hal deegaan iyo hal dadna loo wada shaqeynayo in isdhax galaan oo la isbarto oo gudoomiyaha Tiyaglow iyo gudoomiyaha Baraawo ay sheekaystaan oo iswarsadaan wixii duruufaha yaalo Tiyaglow iyo Baraawo la iswareysto la isbarto wixii waaye aragnimo ah iyo horumar oo la isdhaamana la isku sheego muhiimadda kale oo leedahay taas waaye intaas kadib runtii kulamadii aan soo marnay nimbo waqti bay u joogtay dadka say u badan yihiin waa yar yihiin dad shantii kulanba soo joogay laakiin nin shantii soo joogayna waa joogaa nin afar joogay baa joogo nin saddex joogay baa joogo nin laba joogaa joogo nin hal joogay baa joogo nin walbana wuxuu ka faa'iidi karay yuu ka faa'iiday dad mas'uuliyiin ah oo gudoomiyaalka degmooyinka iyo gudoomiyaalka gobolada ah yaatiin ujeedada la rabo in lisuukin keeno isugu timaadeen intaan idin sheegay waaye intaas waxaa sii dheer wixii soo kordho si loo kala qaato midda ugu horeyso waxaa weeye wada shaqaynta degmooyinka iyo gobolada iyo wasaaradda iyo madaxweynaha horta saasay u xiriirsan tahay gudoomiyaha degmada waxaa laga rabaa inuu degmadaas uu mas'uulka ka yahay iyo inta hoos imaado oo ku xeeran intaba subaxi waaga markuu bariyay inuu warbixinteeda helo warbixinteeda oo dhammaystiran uu soo gudbiyo gudoomiyihii gobolka gudoomiyihii gobolkana uu soo gudbiyo wasiirka arrimaha gudahana uu madaxweynihii soo gaarsiiyo oo degmo hebel iyo xaalkeeda iyo wuxuu yahay xogteeda iyo warbixinteeda dhammaystiran inay ka timaado gudoomiyaha saasna ay madaxweynaha u soo gaarto haddii wada shaqayntaas rasmiga ah aan la helin waxaa dhumaayo qofka
shaqadii uu hayay iyo sidii loo dabageli lahaa iyo kontaroolkii iyo ka warqabkiisi ilaa wuxuu ka shaqaynayo lama yaqaano gudoomiyaha tahay haddii inta qofka la yiraahdo degmadii uu tago waxaan dantiisa ahayn uusan ka shaqaynin oo waa laga dambeeyaa iyo waa lagu soo dirayba uusan dhihin degmadii gudoomiyaha looga dhigay uu malaynayo boos asaga loo gooyay iyo dhul asaga leeyahay oo uu maamulayo uusan ogeyn inay dawlad ka dambayso inay xisaabtan ka dambayso inuu nidaam ka dambeeyo waa mucjisooyinkay ka mid tahay waxaan u baahannahay marka nin kastoo gudoomiye degmo ah mas-uuliyadda ugu horeysa oo saaran oo waajibaadkiisa ah oo uu gudanayo waxaa kow ka ah wada shaqaynta iyo isku xirka bulshadaas deegaankaas iyo stateki jaraanjarada loo soo maraayana tanaan sheegay waaye jidkaasaa loo soo maraya inaan helno warbixin joogto ah oo wixii saaka ay ku waabiriisatay marko bardaale xudur kulli la ogaan karo inaan helno waaye iyo muhiimaddeeda leedahay waxayna taas ku suurtogeli kartaa in la wada shaqeeyo markii maamulkii uu wada shaqayntaas joogtada ay jirto adinkana aad ku xiran tihiin dadkii shacabka ahaa oo aad maamulka u ahaydeen oo la idiin soo magacaabay aad ka warqabtaan waa laidinkula xisaabtamaya adduunya iyo aakharaba dee waa mas-uuliyad insaaran ilaahayna waa inkula xisaabtamaya dadkaas adinkaa mas-uuliyaddeeda lidiin dhiibay anigana berrita markii lai weydiiyo waxaan leeyahay aakharo ilaahow waxaan u dirsaday degmadaas waxaa mas-uul iiga ahaa oo dayacay aakharo loo haystaa liibaan asaa hawshaas waday waxaa loo haystaa najax asaa la rabay inuu kor ka ogaado anna halkaas wasiiraan u magacaabay oo ogaa waxaan ka ogaa ma lahayn marka dhibaatadii iyo duruuftii iyo wixii jiray oonan aniga ogeyn oo meeshaas ka dhaco ilaahay waa ogyahay waxaan ka qaban lahaaba ma ogi kama warqabay marka ciddii suubisay yaa loo haystaa sidaas darteeda mas-uuliyad culus yaa idin saaran shacab tiro badan oo kan baadiyaha jooga iyo kan magaalada joogaba yaa mas-uuliyad inka saaran tahay adduunya aakharana waa la inkula xisaabtamayaa si marka xisaabta liinla wadaago oo liinla ogaado waa inay wada shaqayn joogto ah jirtaa middaas waaye midda kale waa tan waa ognahay degmooyinka kulligood waxay ku jiraan go-doon oo isu socodkii gaadiidkii iyo degmo u socon karto ma jirto hadday jirtana waa shacab lasoo dhibaateeyey iyo gaadiid lasoo dhibaateeyey uu cadowgan jidka u taagan yahay oo ama uu soo canshuuray ama uu soo imtixaamay ama dad ayaga la nooloo la shaqaynaya ah laakiin si xornimo ah inay dowladdii intay ka baxdo afgooye baabuurkii uu baraawo tago way adag tahay hadduu tagana waa wax sida hadda aan sheegayay ku imaaday oo dad shacab ahoo ayagana aada loo soo dhibaateeyey oo 200 meel loo soo istaagay ay soo gaaraan ayadoo ay saas tahay duruuftana iska adag tahay haddana waxaa yimaado samafal iyo hay-ada samafal iyo gurmad iyo qayladhaan tiro badan oo dowladda koonfur galbeed ay suubisay way u suubisay degmooyinka oo dhan iyo tuulooyinka iyo duruufaha ka jiro loo suubiyey dadkaas ayaga ahoo samafalkaa annaga dayn kuma lihin doonarkaas lacagta bixinaayo dal nabad ahay dad nabad ahay ka yimaadeen waa noo soo gurmadeen dayn kuma lihid asxaan baa lagu suubinayaa ilaahay baa kuu jujuubay marka ay yimaadaan oy degmadii yimaadaan oo dadkii masaakiinta ahaa oo qayladooda la gudbiyey ay u yimaadaan cidda ay ka soo dhacayaan ay kow u imaanayaan waa maamulkii guddoomiyihii degmada waay waxaa laga rabaa guddoomiyaha degmada inuusan albaabkiisa xiranin albaabkiisa uu furnaado samafalkana la soo dhoweeyo danta gaarka ahna laga ilaaliyo waxa lagala hadlayo ay noqoto dan guud iyo deegaankaas iyo shacabkaas iyo wixii loo qaban lahaa ama development ha noqoto ama emergency ha noqoto wax hay-ad ah hay-adahaas shaqaynayo oo soo gurmaday waxaa la rabaa in la tuso maamul wanaag wada shaqayn fiican soo dhoweyn
dadkii la tuso wax u qabta la yiraahdo laakiin hadday mar noqoto tuhun iyo aniga taydii waa ka waayay email aan ka qorayaa shaqadii aan ka joojinayaa sababta loo joojinayo maxay tahay aniga waxaan rabay ka waayay hadday noqoto waa masiibada kale oo sheegaynay u baahan in kula xisaabtamo waay